wasiirka wasaaradda shaqada iyo shaqalaha maamul goboleedka Hirshabelle Maxamuud Sheekh Cali ayaa waxa uu ka hadlay shaqo la'aanta ka jirta deegaanada maamul goboleedka Hirshabelle asigoo tilmaamay in shaqo abuur ay u sameyn doonaan dhalinyarada ku nool gobolka Hiiraan iyo deegaanada kale ee maamul goboleedka Hirshabelle. Degmooyinkiisa waxaan kordhinaa u sheegnaa shay'adaha waxay qaataan shaqaale wixii maanta ka horeeyay waxyaabo la soo maray waa ognahay nin walba asaga ayaa iskiis shaqaalihiisa maanta u dalbanaya waxaan kordhinaynaa wixii maanta ka dambeeyo eedaha ciddii shaqaal qaadanayso ama hay-addii shaqaal qaadanayso waa inay soo wargeliso wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha inay soo wargeliso soo wargelintaas weysi keliya maaha si loo helaa xuquuqda shaqaalaha si loo hubiyo imtixaanka si loo hubiyo CV-gooda si loo hubiyo cidda ay ka qaadaya imtixaanka inay Hirshabelle tahay iyo cid kale tahay marka waxaan ku wargelinaynaa in laga bilaabo maanta hay-adaha ka howlgala ee gobolka Hiiraan degmooyinka Beledweyne cid alla cidda imtixaan qaadayso ama shaqaale ay qaadarabto. sidoo kale waxa uu sheegay in shaqaaleyntu ay ku qaadan doonaan hab aqooneed maadaama markii hore dadka lagu shaqaaleysiin jiray waxyaabo aan wanaagsaneen oo ay ka mid tahay 4.5 oo ku salaysan beelaha. waxaan qaadanaynaa xuquuqda shaqada iyo shaqaalaha inaan raadino in imtixaanka dadka sida badan saan loo socdo sida dowladda u galnay 5 qofood imtixaan laga qaadaa 5 qofood niman aqoon leh niman aqoon leh isugu jiraan kii aqoonta lahaa waa baasa kii aqoonta lehna waa dhaca asoo aqoon la'aan soo riday ayuu wuxuu leeyahay nin dad imtixaankii hore u haystay ayaa mataqaanaa nin dooran waa imtixaanka hore u haystaa imtixaan la galay ayuu leeyahay markii isma hubo aqoontiisii war uma hayo marka annaga waxaan caddaynaynaa oon gunaynaa hay-adihiina eed la'aan ku noqonayaan 5 qofood imtixaanka galayso CV-ga marka hore ka qaadaynaa CV-gooda aan oganaynaa haddii ninka oo macnaha professionkiisa waxa la doonaa u sameeyaan annaga meesha u caddayna waxa professionka ma aha ka jooga leeyahay short list uu soo saari maayo intii markaas short list shaqada professionkeeda iska waa shuruud soo buuxisay ee soo saara imtixaankaas annaga goobjoog ka noqonayno sidaas inuu macnaha aan balan qaadinaa in cidna ay sheeganin wax leeyahay imtixaankaas maasuq lagu qaaday waa lagu maasuqay inaysan dhihin nin walba aqoonsi u karsanaado taas annaga Bashir Abdullah Usman telefishinka caalamiga Ariel TV Beledweyne.